Salaamulla saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ahaa oo aan kaga hadlayno weerarka iyo hanjabaadda afka ah ee madaxweynaha Mareykanka ku hayo Greenland iyo Denmark iyo falcelinta madaxda Yurub. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aan kuula wadaagno xogo maalinle ah. Mahadsanid. Ra'iisul Wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ayaa ugu baaqay Mareykanka inuu ixtiraamo Denmark, isagoo xasuusiyey in Denmark ay muddo dheer ahayd xulafo daacad u ah Washington, isla markaana ay garab taagneyd dagaaladii Mareykanku hogaaminayay ee Ciraaq iyo Afghanistan. Wuxuu xusay in askar badan oo Danish ay ku naf waayeen dagaaladaas, taasoo muujinaysa heerka sare ee daacadnimo iyo xulafanimo ee Denmark. Kristersson hadalkan wuxuu ka jeediyey isagoo ka falcelinaya hanjabaadda Trump ee la xiriirta inuu Mareykanku qabsanayo jasiiradda Greenland oo hoos timaada Denmark. Ra'iisul Wasaaraha Sweden wuxuu si cad u yidhi, Mareykanku waa inuu u mahadceliyaa Denmark oo sanadihii lasoo dhaafay ahayd xulafo aad daacad ugu ah. Arrintan waxay daaha ka rogaysaa xaalad aan hore si sahlan maskaxda ugu soo dhici karin, oo ah in reer Yurub ay gaaraan heer ay si dadban ama toos ah ugu baryaan Mareykanka inuusan qabsan dhul iyaga ka tirsan. Marxaladda hadda taagan waxay muujinaysaa in Mareykanku uusan xitaa tixgelin siinin Denmark, inkastoo ay xubin ka tahay isbahaysiga NATO. Haddii Mareykanku qaado tallaabo militari oo ku qabsado Greenland, arrintan waxay noqon doontaa dhirbaaxo culus oo burburin karta isbahaysiga NATO, isla markaana albaab u furi karta isbeddel istiraatiiji ah oo ballaaran oo ka dhaca nidaamka caalamiga ah, kana dhigaysa xulafanimada reer galbeedka mid su'aalo waaweyn la geliyo.